Duryaminta dawiyo ya daryeel u fidin karaa fariin ku saabsan xuquuqda dadka naafada ah. kow dadka naafada ah waa kuwa qayb muhiim ka ah bulshada. labo dadka naafada ah bulshada tira ahaan waxay ka yihiin in ka badan 15% qiyaas ahaan. saddex dawladda Soomaaliyeed ayaa saxiixday axdiga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada adduunka sanadka 2019. afar bulshada maamulada iyo dawladda waxay mas'uuliyad xooggan ka saaran tahay hubinta ka qaybgelinta dadka naafada ah arrimaha bulshada iyo siyaasadda. shan wax kasta oo ku salaysan faquuq takoor magac bixin qaldan ixtiraam xumo iyo kor istaag xuquuqdooda dadka naafada waa dambi lagu ciqaabayo cid kasta oo ku kacda. lix adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada shaqaalaysiinta iyo ganacsiga waa in loo sameeyo qaab iyo qorshe dadka naafada ay kaga qaybgeli karaan kagana faa'iideysan karaan. fariintan waxaa iska kaashaday Somali Disability Cluster iyo hay'adda qaramada midoobay ee hawlgalka Soomaaliya gaar ahaan waaxda xuquuqul insaanka.